ninka alaabta keenista ayaa hal wicitaan oo kaliya sameeyey bangigana isla markiiba uu baabay. markaas ayaa maamuluhu garwaaqsaday in ninka ay iska dhigtay uu dhab ahaantii ahaa ninka ugu taajirsan adduunka. waxaa cadaatay in bilyaneerku doortay inuu nolol dadka caadiga ah ku noolaado isaga oo qarinaya aqoonsigiisa oo cunto gaarsiinaya. maalintaas wuxuu bangiga u yimid isagoo xiran dharkiisa gaarsiinta si uu lacag u soo bixiyo, wuxuuna ku soo beegmay inuu aqoonsado saaxiibtii jaamacadda hore taasoo hadda ahayd maamulaha bangiga. wuxuu si farxad leh u salaamay maamulaha, laakiin markii ay aragtay inuu yahay nin gaarsiiye waxay uga digtay inuusan shaqo ku jiro xilliga dhexdiisa isku dayin inuu isdhexgalo. kadib ninku wuxuu u gudbay inuu hawshiisa qabto. markii maamuluhu ogaaday inuu u yimid inuu lacag soo bixiyo, isla markiiba way ku maadsatay iyadoo tiri bangigoodu wuxuu la macaamilaa oo keliya dad haysta 10 milyan. waxay tiri nin gaarsiiye ah ma lahaan karo lacag bangigan ku jirta, waxayna isku dayday inay ka saarto. ninku wuxuu weydiiyey erayadeeda, laakiin iyadoo aan weli garanayn qofka uu yahay ayay sii sheegtay in bangigan yahay mid dadka bulshada sare uun u adeega. laakiin iyada ma ogeyn in ninka hortiisa taagan uu ahaa bilyaneer qiimihiisu yahay trilyanno. markasta oo uu isku dayay inuu sharxo waxay ka heli jireen oo keliya qosol qabow isaga oo lagu yaso. ugu dambayn wuxuu si toos ah u yidhi, ma soo bixiyaa lacagta mise maya? maamuluhu waxay go'aansatay inay hal fursad siisay, waxayna tidhi, imise ayaa akoonkaaga ku jirta? ninku wuxuu ku jawaabay 30 milyan. laakiin waxay ka heleen oo keliya qosol iyo maadsi. waxay u arkeen nin waalan oo buuq wada, waxayna isku dayeen inay ka soo saaraan. markay diiday inay hawshiisa qabato, ninku wuxuu ku yidhi, ha ka shalaayin. laakiin maamuluhu waxay tiri farqi darajo oo aad u weyn ayaa idinka dhexeeya, xitaa uma qalanto inaad iga dhigto inaan shalaayo. erayadaasi waxay si xun u xanaajiyeen ninka. markuu ku dhawaaday inuu caroobo, intern ayaa yimid oo soo jeediyey inuu ka caawiyo lacag bixinta. laakiin maamuluhu way canaanatay internka, waxayna tiri adeegiisu wuxuu dhaawacayaa sumcadda bangiga, waxayna damacday inay shaqada ka ceeliso. markaas ayaa eegu bangiga soo galay. markii maamuluhu arkay, dabeecaddeedu si buuxda ayay isu beddeshay. waxay u adeegsatay si liid ah, eegana wuxuu sheegay inuu samaynayo macaamil dhan 50 milyan. maamuluhu waxay tiri eegu waa fib sameeya macaamil ka badan 1 bilyan sanad kasta oo leh mudnaan gaar ah. internku wuu niyad jabay, laakiin ninku wuu joojiyey isagoo leh, fib maxaa gaar ka dhiga? markaas ayay ku hanjabtay in eegu ka mamnuuci karo dhammaan shirkadaha. laakiin ninku wuu ogaa inuusan eegu awooddaas lahayn. eegu wuxuu yimid oo ku maadsaday ninka isagoo leh, nin gaarsiiye ah nolol dhan 10kiiba ka heli maayo waxa aan hal mar helo. kadibna wuxuu ku yidhi ninka, bax, ma rabo inaad meesha wasakhayso. laakiin isaga oo hadalkaas wada, ninku wuu dharbaaxay. eegu wuu cadhooday, wuxuuna ku hanjabay inuu xabsi diri doono. maamuluhuna waxay ku tiri ninka, jilba joogso oo raali gelin. laakiin ninku wuxuu yidhi, waxaan idin siinayaa 30 ilbiriqsi inaad ka raali noqotaan, haddii kale bangigu wuu xirmayaa. maamuluhu waxay u malaysay inuu waalan yahay, waxayna amartay ilaaladii inay ka saaraan. laakiin eegu wuxuu rabay inuu arko waxa dhici doona. markii wakhtigii dhammaaday, ninku wuxuu wacay kaaliyihiisa wuxuuna ku amray in dhammaan shirkadaha uu leeyahay ay isla markiiba kala baxaan lacagaha bangigan. kadib wicitaankii, maamuluhu way ku maadsatay iyada oo tiri waa sheeko been abuur ah oo kibir uu isku shiday. laakiin telefoonkeeda ayaa bilaabay inuu si degdeg ah u yeero. shirkadu ayaa bilaabay inay kala baxaan lacagahoodii midba midka kale ka daba. shirkadahani waxay wateen ugu yaraan 2 trilyan oo deebaaji ah, bangigu ma dabooli karin lacagtan. markaas ayuu ninku yidhi, hadiyadda ma jeclaatay? laakiin maamuluhu weli rumaysan may. waxay wacday madaxweynaha bangiga. madaxweynuhu way argagaxday, waxayna ku tiri maamulaha inay arrinta degdeg u xalliso. isla markaas madaxweynuhu waxay wacday kaaliyaha ninka si ay u ogaato sababta iskaashiga uu istaagay. markay maqli weyday in shaqaalaheedu ka xadgudbeen qofka bilyaneerka ah, waxay ogaatay in qalad weyn dhacay. markay maqashay in ninku weli bangiga joogo, waxay go'aansatay inay timaado. markay maamuluhu ku soo noqotay, waxay isku dayday inay mar kale ka saarto ninka, laakiin wuxuu yidhi, lacagtayda weli ma helin. wuxuu soo saaray kaarkiisa bangiga, kaarkii ugu sarreeyey ee madow oo leh overdraft dhan 100 milyan. qof walba wuu yaabay. maamuluhu waxay u malaysay inuu yahay kaar been abuur ah, waxayna amartay ilaaladii inay xiraan. laakiin markaas ayaa madaxweynihii soo gashay. maamuluhu waxay degdeg u sharaxday wax walba, waxayna ku tiri booliiska ha la waco.